وصحبي أجمعين وبعد قضب إنه آذو ذا دقيسني ودلنيرada runtii aad u taabanaya oo waxa weeye waan la socday dhaqdhaqaaqa qaacada iyo hoolka ay aad u daneynayeen oo guurka ah ayaan rabay inaan wax yar ka idhaahdo anigu ma gabiyo oo gabay wax uga oran maayo laakiin gabay guurka laga tiriyay oo aniga layma tirin aabahay looma tirin laakiin Allahu raxmade awowgay baa loo tiriyay baan yar ka dhahaya raggii hore de guurka waa u meelday jireen mustaqbal iyo arrin masiiriya inuu yahay bay ogaayeen aad bay waxa weeye uga bogan jireen marka uu ninku damac guruud galo waxa laga yaabaa iyadoo gaadiid aanu jirin oo wasaa'ilu naqli aanu jirin oo gabadha meel fog lagu sheego gaadiid aad u raacda aanu jirin oo waxa weeye wax lagu wada xidhiidha iyo warbaahin aanay jirin iyo isgaarsiini haddana ninka Soomaaliyeed maalinka uu hanguur uu galo waxa weeye si la yaab uga bogan jiray waxaad moodaa dhalinyaradu inay hadda ay sidii ninkii abwaanka u lahaa ragga qaarse uma miidaan daye waa iska mehershaaye yaad moodaa inay ugu dhawaawayso gabayga marka hore hadaan tilmaamo awowgay Cali Xasan Ilaahay u naxariisto aamiin dhahaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga mawtada islaamka oo dhan Allah u naxariisto ducaad aad u fiican oo dadka iyo dalka iyo diinta iyo deegaanka intaba wada deeqday baa abwaam Yuusuf Suusleyno mariyay laakiin mid baad ku xumayseen waxaad ku xumayseen ma taqaanaan ama aynu ku xumaynay aniga qudhaydo aan isku daro hadii la duceeyo qof uu dhaho Allah ayo waxa nasi inta dhageysanaysa maxaa la gudboon aamiin timeenu ka halmaan misaana mooday ya sacab baan maqlay anigu sacabka cidina fatwootay garan maayo waxa weeye ducadu aamiin bay lahayd marka taasina waa sixid inantii maxay ahayd miidiyaha mar ay uu abwaan jaamacu yiri waa dhutiyaysaa ha loo duceeyo ragga qaybtooda waxay dhaheen way gabadha waxa weeye dhaawac baa ku yaale ha loo sacbiyo marka waxa weeye bidaan miidiya oo dadaalay khayr Allah siiye waxa weeye badha fatwada waxa weeye bidaan miidiya keenay haddaan u goddago waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala awowgahay u naxariisto wuxuu maagay oo doonay oo damaaci ka galay gabadh waxa weeye deegaanka ah oo qurux iyo qiimaba waxa weeye lagu sheegay oo lagu tamaadiyay gabadha rag baa uga horeeyay laba nin oo walaalo oo wada dhashay oo reer galbeed oo absamo oo ogaadeena ayaa uga horeeyay ninkii hore guursaday waa nimanka taqaaneen ee goobta ahaayee geela dhaqan jiray bahal yarada oo geeli waxa weeye baarku intuu leekaa ah ayuu ka bixiyay gabadhii waxa weeye dabeedna wuu ka dhintay yaradkii uu siiyay mid ay ka dhaxashayba waa loo xareeyay mid kale walaalkeeda dumaalay waxa weeye sidii oo kale isna yeelayo geel badan buu waxa weeye ka bixiyay ninka walaalkii baa dumaalay sax ninka walaalkii ayaa dumaalay gabadhii waxa weeye ayayday ahayd Ilaahay u naxariisto wuxuu ka bixiyay geel intii leeg gabadhna way u dhashay isagii dumaalay iyo inantay u dhashayba iyana waxa weeye tii Ilaahay baa u timiyo ajashay oo waa dhinteen waxa weeye iyana isna geel bay ka dhaxashay gabadhii oo halkan bilaa caruura oo garooba oo waxa weeye geel badan u xareysan yahay baa meeshii joogta raggu sibuu uga baqayaayo Soomaalidii hore de waxbay adaroosi jireen war inantan ninkii galaaba waa galbanayaa bay dhaheen dabeedna awowgay oo malaha waxaan si ragga waa ka xiniya badnaay Allah u naxariiste isaga u soo bareeray Cali Xasan gabadhu waxay ahayd ayayda Ilaahay subhanahu wa ta'ala u naxariisto gabadhu waxa weeye Khaalida oo reer khayra abay ahayd reer oo khayre dabeedna
awowgay inantii waa haasaaween waxa weeye hawshii guurka isku afgarteen wuxuu maagay inuu gabadhana guursado dee geelan xoolaha u xaraysanna uu la dareersado nin la dhihi jiray kabadho ingiriis ayaa gabiyey gabaygii bari dhaweyd aan qarare tagay oo oday boqol jir aan ka soo qortay waa iga kala dhumay intii ugu dambaysay baan dhahayaa wuxuu yidhi walba hashii intaa abka ab loo abtirinayay waa geeli gabadhu haysatay waxaa ugu dambaysay markaa walle adoon olole nagaga dhicin walle adoon ablay nagaga dhicin iyo olole maandhiina walle inanka reer geediyow naga eryoon maysid waxa weeye reer geedi inanka oo naga eryoon maysid adoo olole nagaga dhicin iyo olole maandhiina iyo ablay nagaga dhicin ablaydu waxa weeye waa hubkii ma ahayne waa allah u naxariisto dhammaantood kabadho ingiriis allah u naxariisto raggii hore iyagoo dee waxa weeye iyagoo uurka ka wada jira oo caloosha walaala ka ah ayaa afka haddana dee layska xifaalaynayay oo laysu gebiyayey waxa weeye waxaan ku soo gebagabaynayaa dee guurku waxa weeye sideedaba ummad islaama baynu nagu nahay ama aragtida islaamku inaga siiyey baynu qaadanaynaa ama afkaar iyo aaraa aadama isu keenay ayaynu qaadanaynaa keebaa innagayna la gudboon yaa ma aragtida islaamka mise aaraada iyo afkaarta aadamu uu guurka ka qabo keebaynu qaadanaynaa islaamka dee ummad islaamin inna allaha nicimmaa yacidukum bih ilaahay waxa uu idinku waaninayaa dantu idinku jirtaa ta ilaahay idiin doorayaa danta adduunka iyo aakhiraba idinku jirtaa guurka marka koobaad horta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu nicmeeyey baahi guur inuu nagu abuuray inay gabdhahani soo hor fadhiya iyo wiilashani inuu mid kastaba jinsiga kale u baahan yahay oo baahida iyo qariisada ilaahay nagu abuuray waa nicmo ilaahay waa nicmo sababta ma isweydiinaysaa baahidaasi haddaanay inugu jirin waxa weeye odayguna wuxuu dhihi lahaa wiilkuna wuxuu dhihi lahaa maxaa maalin kasta biil iyo sallad lay daba wada iyo mas-uuliyad iyo maxaa i baday gabadhuna waxay dhihi lahayd waxa weeye 9 biloodoon ilmo caloosha ku sido iyo foosho ka sii daran iyo arrimaha maxay geliyay adduunkeeda iska raacan lahayd laakiin ilaahay inana waa dabar gu ilaahay inoo taran lama heleen si ayan taas u dhicin maxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sameeyey guurkii buu inoo xalaaliyey qariisadii buu inagu beeray markaasaa laynagu gubaabiyey wey guurka iyo qariisadan